Asalaamu calaykum daawada kusoo dhawo xalqadeena maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa halyey si weyn u difaacaya 57 sano masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo subscribe saaraya. waa sheekada halyey si weyn u difaacayay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa 57 sano. Haddaba kuma waa halyeygaasi? magaciisu waa Corporal Xasan, askarigii ugu dambeeyay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. asal ahaan wuxuu ka soo jeeday waqooyi bari ee Turkiga. wuxuu si daacadnimo leh ugu adeegayay Jerusalem ilaa dagaalkii koowaad ee adduunka, wuxuuna geeriyooday isagoo ku jira da'aha 90-maadka. wuxuu ka mid ahaa kumanaan ciidamadii boqortooyadii Cusmaaniyiinta u soo direen Gaza si ay uga difaacaan ciidamadii Ingiriiska. xilli carabtu kacdoon sameynayeen, Ingiriiskuna u ballan qaaday inuu sameynayo khilaafo gooniya. 25,000 oo ciidamadii Cusmaaniyiinta ayaa ku shahiiday intii ay difaacayeen magaalada, laakiin hogaamiyihii Cusmaaniyiinta ayaa ku dhawaaqay inay isdhiibaan magaaladana wareejiyaan. bil kadib isdhiibitaankii Cusmaaniyiinta ee magaaladan, Ingiriisku waxay bilaabeen inay isku ballaadhiyaan dhanka koonfurta Falastiin. Generaalkii hogaaminayay ciidamadii Ingiriiska wuxuu soo galay Jerusalem 11 bishii 12aad 1917. Falastiinna waxay gacanta u gashay gumaystihii Ingiriiska ilaa uu xukumayay May 1948, maalin kadib markii la aasaasay Israa'iil. Corporal Xasan kama uusan tegin magaaladii loo soo diray inuu difaaco, inkastoo lagala wareegay xukunkeeda. sheekada Xasan waxay ahayd mid aan la ogeyn ilaa laga soo gaadho sanadkii 1972, wakhtigaas oo uu joornaaliste Turkiya booqday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. wuxuuna dhahayaa joornaalistahani, waxaan arkay nin oday ah oo ku jira da'aha 90-meeyada, gadhkiisuna ciraystay oo taagnaa barxadda masjidka Al-Aqsa. joornaalistu wuxuu weydiiyey, maxaad ka qabanaysay meeshan? wuxuuna ugu jawaabay, waxaan ahay Corporal Xasan, kana tirsanaa guutadii 20aad ee ciidamadii Cusmaaniyiinta. Corporal Xasan wuxuu dhahay kadib markii ciidanka Cusmaaniyiinta lagu jebiyey Suez Kanaalka Masar, in loo soo diray dhanka masjid Al-Aqsa si uu u ilaaliyo Jerusalem ilaa ay ku dhacdo gacantii gumaystaha. 57 sano Xasan wuxuu tegayay salaada subax maalin walba masjidka Al-Aqsa, kamana uusan tegayn ilaa uu ku tukado salaada cishaha. Xasan oo hadlayay wuxuu dhahay, ciidamadeenu waxay baaqi ku ahaayeen Qudus. Sanado badan baa sidaa ku tegay, walaalahayna mowdka ayaa halhal ugu imanayay. sanado badan kadib, anigoo ah Corporal Xasan ayaa ka nool ilaaliyaha Qudus. Xasan weligiis dib uguma laaban wadankiisii hooyo, wuxuuna joornaalistaha ka codsaday hal codsi. wuxuuna ku yidhi, marka aad ku laabato Anatolia, fadlan booqo taliyahayagii ciidanka oo lagu magacaabo Mustafo, kaas oo igu amray iguna aaminay masjidkan barakeysan inaan joogo. ii dhunko gacmihiisa una sheeg in Corporal Xasan oo ka soo jeeda gobolka Igdir inuu weli joogo halkii lagu meeleeyay, si uu u ilaaliyo masjidka barakeysan oo uusan weligiis ka tegin waajibaadkiisii. Allah ku barakeeyo. kadib weriyihii markuu laabtay wadankii, wuxuu bilaabay inuu codsigii u oofiyo, raadiyana taliya Mustafa, laakiin nasiib darro taliyuhu mar hore ayuu geeriyooday. 10 sano kadib, sanadkii 1982, askarigii ugu dambeeyay ee dowladii Cusmaaniyiinta ee joogay masjidka Al-Aqsa ayaa geeriyooday. Ilaahay ha u naxariisto Corporal Xasan.